wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah ee dowlad goboleedka Jubbaland Mursal Maxamed Khaliif ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo uu heliyay wasiir ku-xigeenka ayaa maanta magaalada Kismaayo ku soo dhaweeyay wafdi ballaaran oo ka socday hay'adda UNICEF. wafdigan oo ay hogaaminaysay madaxa hay'adda UNICEF ee Soomaaliya Wafaa Cabdi Saciid ayaa waxa ay u imaadeen inay kulamo la qaataan madaxda wasaaradda qorsheynta Jubbaland iyo hay'adaha dawliga ah iyo kuwa aan dawliga ahayn si ay uga wada hadlaan wada shaqeynta iyo wax ka ogaanshiyaha baahiyaha ka jira deegaanada Jubbaland. soo dhaweynta kadib wafdiga ayaa waxa loo soo gudbiyay qaybta martida ee garoonka diyaaradaha iyagoo halkaasi kulan ay kula qaateen wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka waxa ayna iska xog wareyseen caqabadaha jira iyo sidii xal looga gaari lahaa. wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah ee dowlad goboleedka Jubbaland ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya Mursal Maxamed Khaliif ayaa kulanka kadib la hadlay muqbaahiyaha Jubbaland isagoona sharaxay kulanka iyo waxyaabihii ay ka wada hadleen madaxdii ka socotay hay'adda UNICEF. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Waxaa maanta waan halkan ku soo dhaweynay wafdi ka socda UNICEF oo ay hogaaminayso madaxa hay'adda UNICEF ee Soomaaliya oo Wafaa Saciid Cabdulatiif oo runtii u timid inay shir la yeelato labada cisho soo socota hay'adaha dawliga ah wasaaradaha Jubbaland si ay uga wada hadlaan wada shaqeynta baahida Jubbaland iyo hay'adaha dawliga iyo u adeegida bulshada reer Jubbaland. waxaa runtii aan aad iyo aad uga mahad celinayaa hay'adda qaramada midoobay iyo UNICEF oo ka mid ah waax ka tirsan qaramada midoobay howlaha ay ugu adeegayaan kuna caawiyaan bulshada iyo shacabka reer Jubbaland. aad iyo aad baan waxaan u rajaynaynaa in wada shaqeyntayada aan sii xoojino sii kordhino si tayo leh oo hufanna aan ugu wada adeegno shacabka iyo bulshada reer Jubbaland. waxaa maanta aan runtii aad uga wada hadalnay doorka hay'adaha dawliga ay ku leeyihiin adeegyada bulshada iyo sidii loo xoojin lahaa macahadyada dawliga ah si ay awood buuxda ugu yeeshaan in ayaga ay adeegyada muhiimka ah inta ay UNICEF wax ka qabato ay mustaqbalka la wareegaano bulshada ay u fidiyaan. ayaan la aadan Axmed warbaahinta Jubbaland Kismaayo.